madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka ambabaxay magaalada Muqdisho isagoona ku sii jeedo magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in safarka madaxweynuhu uu ku mari doono maamulada kala ah Puntland iyo Galmudug loogana gal leh in madaxweynuhu uu ku urgalo xaaladda amni iyo nololeed ee gobolada Puntland iyo Galmudug. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu waqti badan u heli doono inuu bulshadiisa la hadlo inuu qaybaha kala duwan ee bulshada la fariisto oo maalmo qaadan doono wuxuu ku mari doonaa Puntland iyo Galmudug wuxuuna la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan aad ugu faraxsanahay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu waqti badan u heli doono inuu bulshadiisa la hadlo inuu qaybaha kala duwan ee bulshada la fariisto in odayaasha dhaqameedyada culimada dhalinyarada aqoon-yahanka cid walba oo ku sugan Galmudug iyo Puntland inuu la fariisan doono si loogu kurgalo xaaladaha deegaanada ka jira safarka nabad iyo nolol wuxuu noqon doonaa mid taariikhi ah oo bulshada meelaha fogfog joogta aan ku gaarayno waqti fiicanna aan la qaadanayna si aan xaaladahooda nololeed u ogaano aad baad mahadsantiin. safarka madaxweynaha ayaa noqonay kii ugu horeeyay ee uu ku tago deegaanada Puntland tan iyo markii madaxweyne loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo sii horeysa oo ku dhow sanad. Muuse Maxamuud Jiiso, Ariel TV, Muqdisho.